السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قيمها ماموس كحشمة ضيّة كرامة مضانات بانين سلام وقت وعن نلل ونكسني عافيمات تاما ياندين رجيني ناكسو دوادا كنال كان عافيمات كي دكتورك عافيمات كغويسك وقالكم وحينو كويغينا ما ينو كغا ورمين cabitaan aynu Soomaali ahaan aad u jecel lahay oo dhaqankeena meel sare kaga jira oo bulshadeena yar weyn sagiir iyo kabiir intuba ay isticmaalaan oo laga yaabo hadii laga hadlo ama dadka qaar wax laga sheegay inay la yaabi doonaan arrintan baa waxaynu eegi doonaa si scientifiga oo markaa dabcan aynu soo qaadanayno baxaska ay dhakhaatiirta iyo culimada saynisku ay sameeyaan ay kaga daba tagaan waxyaabaha ibni aadamku isticmaalaan ayaynu isku soo bandhigaynaa inagoo ka eegi doonaa dhinaca beneficial credentiska uu ka samaysan yahay waa faa'iidada iyo waxtarka uu leeyahay iyo dhinaca harmful credentiska ama waxyeelada caafimaad ee uu geysan karo jirkeen kuwaasaynu ku soo qaadanaynaa marka innaka ayaa kala dooranayna kee khatartiisa marka aynu aragno iyo faa'iidadiisa markaynu dhageysano qof kastaaba marka option buu u leeyahay ta uu qaadanayo ama ta uu bareerayo inuu marka isaga ayaa ikhtiyaar u leh arrintaas haddaba intaynaanu iman shaaha noociisa bigayska ama rinjiga ama marka loo yaqaano guduudka waa ka shaaha rasmiga ahi kaa weeye kaaynu caanaha ku darna ama shaaha caddaysan kaa waxaa la yidhaahdaa waa max tea inta badan waa la isku daray oo mix baa la sameeyey oo caano iyo shaah baa la isku daray markaa dabcan isaga shaaha caadiga marka laga hadlayo kaa lagama hadlo mar gaara ayaa shaaha caddayska aynu si gooniya u soo qaadan doonaa oo marka aynu kilibka insha Allah waqtiga kale aynu kaga eegi doonaa faa'iidada uu leeyahay iyo khasaaraha uu abuuri karo laakiin maanta shaaha bigayska ama shaaha rinjiga ama shaaha gaduudka baynu kilibkan si toos ah ugu eegaynaa hadii Ilaahay ka dhigo intaan faa'iidadiisa u guda gelin cabitaankan Soomaalidu aad bay u jecel yihiin waanay ku faanaan magacyada ay u yaqaanaan waxa kamid ah gobdeed bararaysime cadceedile casariye iyo fiidka ku caways waa magacyada quruxda badan ay ku qurxiyaan ay ula baxaan gobdeeq waa mid ay runtii isku casuumaan gobtooda waa bulshada dadka ugu qiimaha badan ee gobta la yiraahdo ama dadka ugu wanaagsan ama dadka ay ugu jecel yihiin bay ku casuumaan gobdeeq yacni waxay yiraahdaan waxa qure dad gola fadhiya oo lagu fadhiisiyo cabitaanka la siin kara ee qancin kara waa shaaha ay aaminsan yihiin waxay kala yiraahdaan ama qaar kamid ah shaaha ay u bixiyaan barqaysime waa shaaha ay subax cabaan ama subax ay ku quraacdaan ama barqada ilaa inta barqada ay cabaan shaah kale ayaa jiro la yiraahdo cadceedile waa shaaha ragga inta badan balwada cuna ay ku fadhiistaan ee cadceeda ay ku dilaan ee inta duhurka ilaa inta salaada kale u dhaxaysa iyo inta ay isticmaalaan ee cadceeda iyo duhurkii marka cadceedu kulushahay ay kaga fadhiistaan ee cabaan bay yiraahdaan waa cadceedile casariye waa shaaha inta badan ay salaada casar ka bacdi marka salaada casar laga soo dareero ay u fadhiistaan casariye ayaa la yiraahdaa shaaha ugu dambeeya waa fiidka ku caways waa kayfiidka ama salaada maghrib waxa loo gaadhan ay ku caweeyaan halkan waxay nooga muuqata waqtiga inta badan Soomaali ahaan inaynu ku bixino cabitaanka shaaha markaynu dabcan aynu saas aynu eegno warbixinta yar ee kooban ee ku saabsan magacyada ay ula baxaan waxay kaloo isaga qudhiisa ay ku tilmaamaan dhaka jabiye dhafoor qariye iyo dhadhan macaan kaana way yiraahdaan waa magacyada ay siiyaan shaaha marka ay jecel yihiin ama qaabka ay ugu raaxaysanayaan ayay heestahaas iyo hadallada ay ugu tiriyaan aynu nimaan hadaba faa'iidada intayna faa'iidada ku horeynin waxyeelada uu yeelan karo shaahu ayaynu kilibka ama muuqaalka isu taagaynaa ama benefitskiisa iyo beneficial credentiska uu ka samaysan yahay dhinaca sayniska marka laga eegayo ayaynu ku hakanayna
shaahu waxa uu inta badan laga sameeyaa caleen aslankeeda cagaaran, laakiin marka dambe ay runtii la qallajiyo ayaa midabka guduudka ama casaanka ay isku beddesha. caleentan waxaa ku jirta maado la yidhaahdo bactin oo ka qayb qaadata inay lysis ku samayso calciumta lafaheenna, isla markaa dagaal adag ay la gasho faytamiinka la yidhaahdo vitamin D. macnaheedu waxa weeyaan lafta qofka ayaa tayadiisu hoos u dhacaysa, ama ay rifmaysaa, ama ay qara dhuubnaanaysa. inta badan lafta waxaa ballaadhiya jimxigeeda iyo ballaceeda iyo cududeeda iyo maaska iyo matragaska ay ka samaysan tahay. waxaa ballaadhiya waa labadan maado aynu tilmaamnay, ama labadan macdanood, faytamiinka la yidhaahdo vitamin D complex iyo calciumta. labadaas ayay dagaal xoogan la gasha. inta badan waata bulshada Soomaalida ay nagu sababtay inay lafaheenu ay dhuudhuubnaadaan. laga yaabo xataa qofkoo hilib leh markaad aragta haddana dhinaca lafaha waynu dhuubanahay. arrintaa waxay nagu sababaysa waa cabitaanka shaaha faraha badan. maadadaas ayaa ku jirta, waxay ka qayb qaadataa qofka laftiisii inaanay ballaadhmin, ama maaha dherarka iyo xagga hayska ka hadli mayno. laftu muddo kooban bay socotaa, oo markaa qofku inta uu da-aadda dhowr iyo labaatanka ka hooseeyo ayaa dherarkeedu socdaa. laakiin markaa ay laftu dherarku istaagto waa inay ballaadhataa, oo jimxigii iyo awooddii waa inay kortaa. taas ballaceeda iyo awooddeeda way kori kartaa. sababta laakiin inta badan aanay lafaheenu ama dadka shaaha cabba waa qoomiyadaha dunida ku dul nool oo dhan lafahoodu way dhuudhuubtaan oo ma ballaadhnaadaan. arrintaas ayaana ka qayb qaadata. qodobka labaad, weliba arrintaa markay dhakhaatiirtu sii dabagelayaan, waa arrin abuuri karta laftu haddii aanay tayo badan lahayn inay hadhowta soo saari weydo dhuux, isla markaa ay abuuri weydo dhiig, isla markaa arrintaasi ay sii abuurto inuu qofkaasu gabowgu uu ku soo degdego, lafa xanuunku ay ku soo degdegaan, xanuunada inta badan arthritis-ka iyo rheumatism-ku ay yimaadaan, inta badan qofka laftiisa inay bilaatayo noqoto, tafiir, waxyaabo badan baa markaa hoos u dhacan. marka arrintaa inaynu dhug weyn u yeelano, dabcan wixii wax saynisa haddayin la soo baadho dhakhaatiirta iyo saynisyahanku ay xooga saareen inaynu isku sheegno. waa ognay shaaha waa cabnaa, waa ku wada nool nahay, laakiin haddana dabcan waxaynu indhaha ka qarsan karayno maaha. qodobka labaad ee dabcan iyaduna aadka u miisaankiisa leh waxay samaysaa wax loo yaqaano accumulate sugar. sonkorta ayay ku abuurtaa ama ay ku tuushaa xilliyada qaar qofku haddii uu aada u isticmaalo inuu jidhka sonkor badani ay gasho. taasina ay ka qayb qaadato inuu beerku markaas insuliintii jidhka ee gubi lahayd ay ku guuldaraysato. kadib qofku sidaa ku develop gareeyo xanuunka la yidhaahdo macaanka, ama uu sidaa ku qaado xanuunka macaanka, uu sidaa ku hantiyo. taasina waa arrin kale oo waanina oo digniina oo bulshada aynu gaadhsiinayno inay dhug weyn u yeeshaan. dabcan xanuunka macaanka bulsho badan oo ka mida dadkeenna ayaa la dhiban, la cadiran oo runtii la jifa. saa laajigeed waxaanu ka mid yahay xanuunada aan ilaa hadda waa untreatable diseaska ama xanuunada aan la daweyn karin. arrintaasna iyadana waynu qabanaynaa ama hoostaynu ka xariiqaynaa. waa qodob labaad oo dadka cabitaanka shaaha ee aadka u cabba, ee xilli kasta cabba, ee shantaa waqti aynu tilmaamnay aadka u cabbaya, ee casariya cabbaya, ee barqaysimaha cabbaya, ee fiidku caweyska cabbaya, ee gobdeeqa waxaasoo dhan buu cabbaya. marka waa dareemi kartaan jidhka sonkorta ku dhacaysaa intay leegtay. waxaa kaloo jirta maado iyaduna ka mida nicotine, ama maadada inta badan abuurta systemka leha adaptationka, qofku inuu waxa uu habitual ay u noqoto oo habit ay u ahaato, caado ka dhigto. yacni qofku inuu la qabatimo oo arrintaas uu la qabatimo maade ayaa runtii saamaxda. way ku yar tahay maadada nicotinku, laakiin waa uu leeyahay. qofkii waa u soo xiisoonayaa, wuu qabanayaa, markuu cabbo wuu dhididayaa, farxad buu dareemayaa. sidii balwadda kale ee sigaarka iyo kofayga ay adaptationka maadadaasu ay ku jirtay
iyaduna inta badan dareenka la shaqaysa ayaa iyaduna qayb ka mid uu ku jiraa, ma badna oo waa laga badan yahay oo runtii waxyaabaha kale ku jirta aad bay uga yartay, haddana waa leeyahay. arrintan waxaa kale oo lasoo hoos dhigaa wax loo yaqaano time consuming. ibni aadanka ilaahay waxa uu siiyey waqtiga inaad cunto oo aad cidlo la fadhiisato, aad waqti iyo saacado dhaadheer aad ku rida maaha. cabitaanka shaaha ee usoo xiisoonaya iyo fadhiisiga maqaaxiyaha waxa ay u keentaa inuu waqti badan cuno. taasina waxay ka abuurantaa xagga markaas bay'adda iyo sunnaha nolosha inay wax badani qofka ay seegaan. kuma inaan darin qof intuu cabo kaca, laakiin waxaynu ka hadlaynaa dadka waxaasoo waqtiya inuu tilmaamnay dabada isku geliyaa, dee waqtigii intii u badnaydba shaah buu siinayaa oo ka qaatay. arrintan waxay u saamaxdaa inay wada fadhiistaan oo ay wada sheekaystaan, isla markaana uu cabo oo markaa shaahii badan uu halkaa ku cabo. saddexdaa dhibaato ayaa inta badan lagu qoraa oo dhakhaatiirtu ay isku waafaqsan yihiin inuu abuuro. waxaynu u imanaynaa markaas faa'iidada uu leeyahay ee laga dhaxlo shaaca nooca bigayska ama gaduudka ama ranjiga baynu iman doonaa insha Allah. qodobka koobaad ee aynu ka faa'iidno waa energy from glucose, good for heart and good for liver. waa saddexdaas ayuu leeyahay. dabcan waa saddex iyaga qudhoodu miisaan culus leh oo aan indhaha laga dadbi karin ama aan la dafiri karin ama aan si fudud looga tallaabsan karin. waxa uu siiyaa dadka energy iyo inuu tamar iyo firfircooni uu ku abuuro. laakiin dadkaas waa dadka gubaya ee ku samaynaya inay markaa ay gubaan. tamartaas uu siinayaa waa mid ay ku gudanayaan hawl maalmeedkooda, energyna waa uu siinayaa oo markaa enerjigaas iyo tamartaas dabcan waxay ka qayb qaadanaysaa inuu ahaado qof firfircoon oo shaqadiisa iyo hawl maalmeedkiisa gudan kara. qodobka labaad ee muhiimka ahi waxa weeyaan inuu u fiican yahay wadnaha. wadnuhu waxa waraabiya ama uu ku nool yahay ama inta badan siiya awoodda ugu badan ama cuntada ugu badan ee uu qaataa waa dhiiggaas u circulationka inugu samaynayo ee uu soo tuurayo ee uu wareejinayo. dhiigga nooc ka mid ah oxygenated blood baa jira oo markaa u baahan in qofka jidhkiisa ay soo gasho waxoogaa sonkori ama markaa jidhkiisa glucose uu helo. waxa kale oo uu fiican yahay dhinaca beerku waxaa sidoo kale uu baahan yahay sometimeka inuu helo sonkor, laakiin glucose-ka uu beerku u baahan yahay qofku marka uu yar yahay ama ilmuhu marka uu yar yahay ayuu aada ugu baahi badan yahay. laakiin marka dambe beerkeenu linkax buu yeeshaa, wax amawd aada u yar ayuu u baahan yahay. amawdka aadka u yar ama xaddiga aadka u yaree uu u baahan yahay waxa uu ka heli karaa cuntooyinka kale ee le sonkoraha noocyadooda kala duwan ee markaas sida polysaccharideska oo kale le sida tufaaxa. qofku hadduu qudaar isticmaalo ama cunto kale isticmaalo oo wax yaroo markaa ay ku jirto ayuu kaga filan oo sonkor si caadiya uu qaata wuu ka maarmi karaa. kambilildi jidhku 100% dhakhaatiirtu iskuma waafaqsana qofku jidhka sonkorta inuu wada joojiyo ama gebi ahaanba ilaa ay jirto xaalad xanuun oo u diidaysa. laakiin qaabka dabcan laga hadlayaa waa excessively, waa saayid, waa overdose, xadaaf, waa wixii xadka ka baxa taata la diidan yahay wey. dabcan saddexdaa goobood ayaa faa'iidadiisu ay ku soo ururaysa. dadka inta badan baadiyaha jooga ama shaqeeya ama markaas iyagu hawsh badan qabta way ka badbaadi karaan dhibtiisa, waxaanay heli karaan dheeftiisa. inkasta oo xataa dadka baadiyaha jooga maadada aynu niri waxaa leeyahaa bractin ee khafiifisa ama dhuubta lafaha ay ka dhaxlayaan, laakiin arrintii kale labadii kale ee khatarta ahaa
ee inuu markaa xanuunka diabetiska ama beerka ay sokor badani ku tuuranto ama dhiigga sokor badani ay raacdo ay ku gubayaan ayay ka hortagi doonaan. waxay kaloo ka hortagayaan in markaa uu waqtigooda iyo noloshooda uu dhaawaco oo balwad aad u ballaaran oo disasterka ama runtii masiibooyinka ay balwaduhu abuuraan inay markaa khatartooda ay ka yaraato iyagoo hawl maalmeedkooda ay ku qabsadaan oo enerjiga ay kaga faa'iidaystaan laakiin aanay kaga faa'iidaysan time losingka ama wasting timeka. dabcan wadnaha iyo beerku waa laba xubnood oo jirhkeenna aada ugu qaaliya. faa'iidadaa dabcan ayuu u leeyahay laakiin xaddi aada u kooban ayaynu uga baahannahay. haddaba sidee bay xeelo ku noqon kartaa ilkana ku nabadgeli karaan bay Soomaalidu tiraahdaa. waxaynu dabcan soo jeedinaynaa dadku in ay haddii aan shaaha laga maarmayn sonkorta loo isticmaalayaa inay aada u yaraato. waa qodobka koowaad. isla markaa dadku inay socdaan oo ay dhididaan oo dhidid baa lagu saarayo tamarta ay ka dhashadaan shaaha ay markaa ay kaga faa'iidaystaan waxqabadkooda iyo noloshooda. dabcan qodobka labaad aynu aada u soo jeedin lahayn waxa weeye dadku inay shaaha ka guuri karaan oo ay u guuri karaan dhagayaraha. dhagayaraha afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa guluuf. waxa uu ka mid yahay waa dhagayaraha cuntada ee noo carfiya ama markaaynu qumamka ka hadlayno ee la tumo ee inta badan dawooyinka ilkaha lagu cadaydo laga sameeyo. dhagayaraha bulshada Soomaalidu hadday u guurto oo halka shaaha ay gashato waxay ka badbaadi doontaa in ay macaanku ku yaraado xanuunada halistaahi ee inta badan qofka dhibaateeya, inay ku yaraato maadada nicotine ee dad inay la qabsadaan. waxaanay ka heli doonaan faa'iido aad u ballaaran oo dhagayarahu aad iyo aad buu uga fiican yahay caleenta shaaha laga sameeyo. waxa uu wacan yahay hunguriga iyo cunaha iyo hawo mareenka iyo dhammaan jidhka. caraf fiicanna waa leeyahay oo qofka jeclaysiinaysa inuu markaa isticmaalo ama marka shaaha lagu daro qudhiisa. shaahana Soomaalidu way ku dartaa. dhagayarahoo keliya inay isticmaalaan ayaa aad u wanaagsan oo runtii qofka heli karaa biyo kulul iyo dhagayaraha isku darsado, sonkor aad u yarna ku darsado, haddii kalena iska dhaafo. waxaynu ka heli doonaa lafaheenu inay koraan, xanuuno badanna aynu ka badbaadno, qarashkuna uu inaga yaraado. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. fadlan la sii wadaaga oo u sii sheergareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan oo inagu soo biraan. dadka nasiibka u helay ama kuwa aynu aadka u jecelnahay ee ku xidhan kanaalkeena caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska, waxaanu mar labaad idin rajaynaynaa waqti wacan, nolol wanaagsan, caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya. intaas iyo fi amaanillah iyo amaana Allah aanu idinku dhaafaynaa iyo xayndaab ilaahay iyo ilaashin ilaahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.